kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warkii ugu horeeyay oo warbaahinta Samakulan oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya idiin soo baahinayso. Waa kuwii 30 bisha Oktoobar sanada 2020. Magacaygu waa AbdiNasir Maxamed. Qodobada ugu waaweyn ee aan maanta idiin heynana waxaa ka mid ah baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo lagu wado in maanta la soo dhameystiro laguna dhaariyo magaalada Duhur ee xarunta maamulkaasi. warar horle oo ka soo baxaya waxyeelada ka dhalatay dhul gariir ku dhuftay magaalooyin ku yaala dalalka dariska ah ee Turkiga iyo Greega. Kenya oo xukunna ku riday rag la xiriiriyay inay ka dambeeyeen weerarkii Westgate ee dhacay muddo laga joogo 8 sano. beeraleyda gobolada dhexe ee Soomaaliya waxay ka cabanayaan ay xaalufin ku haya dalagga beerahooda. Faransiisku wuxuu xoojinayaa ammaanka magaalooyinka gudaha ee dalkaas kadib markii waddankaasi ay ka bilowdeen rabshado la xiriira arrimaha diimaha kaasoo ka dhashay hadal uu madaxweynaha waddankaasi ugu gafay diinta Islaamka Nabi Maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa haatee. dalka Tanzania waxaa mar kale dib loo soo doortay madaxweynaha dalkaas kadib doorashooyin uu buuq badan hareeyay oo ka dhacay waddanka Tanzania. qodobadaas iyo wararka ciyaaraha oo ciyaaro adag ay maanta dhici doonaan ayaan idinkugu heynaa wararka maanta ee warbaahinta Samakulan. u diyaar garooba wararkaasi oo faahfaahsan. wararka ka imaanaya magaalada Duhur ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa ku waramaya in la soo dhameystiray xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas isla markaana lagu wado in isla maanta oo Sabti ah lagu dhaariyo magaalada Duhur oo xarun u ah maamulka Hirshabelle. xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulkaas ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan lagu dhaariyo magaalada Duhur ee maamulka Hirshabelle. ilaa 99 xildhibaan ayaa la dhaarin doonaa kadib markii la dhameystiray tirada xildhibaanada baarlamaanka maamulka labaad ee Hirshabelle. xildhibaanadan oo isugu jiro kuwo cusub iyo kuwii hore ayaa waxaa xildhibaanada kuraasta waayay ka mid ah isla markaana ugu cadcad gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle Cismaan Barre iyo weliba ku-xigeenkiisii koowaad. wasiirkii amniga xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa ka mid ah xubnaha kuraastooda waayay isla markaana ka mid ah kuraastii dhawaan dib loo dhigay. ammaanka magaalada Duhur ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa aada loo adkeeyay. dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in la xiray wadooyinka waaweyn ee qaarkood soo gala xarumaha madaxtooyada baarlamaanka ee magaalada Duhur. doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo 5 bisha soo socota. xubno ka tirsan xildhibaanada cusub ee maamulka Hirshabelle oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in durba magaalada Duhur ay ka bilaabatay dhaqdhaqaaqii u diyaar garowga doorashada gudoonka baarlamaanka oo sanadkan marka loo eego doorashooyinkii hore ay aada uga badan yihiin musharaxiinta isu soo taagaysa. xildhibaanada ayaa sheegay in musharaxiinta oo aanan weli ku dhawaaqin musharaxnimadooda qaarkood ay galangal ugu jiraan siday xildhibaanada ugu qancin lahaayeen inay doortaan isla markaana ay ugu soo baxaan gudoonka maamulka Hirshabelle baarlamaankiisa labaad oo dhawaan lasoo dhameystirayay dhismihiisa. maxkamad ku taala Kenya ayaa 2 nin waxa ay ku kala xukuntay 33 sano iyo 18 sano xarig ah kadib markii lagu eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen weerarkii sanadkii 2013 ka dhacay xarunta ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya kaasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya ku dhawaad 70 qofood. Axmed Maxamed Cabdi iyo Xuseen Xasan Mustafa ayaa loo haystaa inay gacan siinayeen koox Al-Shabaab ah oo soo maleegay weerar ay ku qaadeen suuqa ku yaala magaalada Nairobi halkaas oo ay ku go'doomiyeen muddo 4 cisho dadkii ku jiray. garsooraha maxkamadda sare ee dalkaasi Francisca Andaye ayaa labada nin ku xukumay 18 sano oo shirqool maleegida iyo 18 sano oo ay ku muteysteen taageero ay siiyeen kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta. Maxamed Axmed Cabdi waxaa lagu xukumay 15 sano xabsi dheeri ah kadib markii lagu helay dambiga inuu haystay agab caawiyay kooxdii weerarka qaaday. labada nin oo muddo 7 sano ah ku qaatay xabsi ku yaala Nairobi ayuu Andaye sheegay in sanadahaasi laga jari doono xukunadooda.
waxaan weli la ogeyn halka uu ku sugan yahay eedeysane saddexaad oo lagu magacaabo Liibaan Cabdulaahi Cumar oo horaantii bishii Oktoobar ay maxkamaddu ku weysay wax dembi ah. Liibaan waxaa ka xiisatay koox dabley hubeysan oo weli la aqoonsan. Dhammaan saddexdan eedeysane ayaa isirkoodu yahay Soomaali, iyadoo laba ka mid ay yihiin muwaadiniin u dhashay waddanka Kenya haystana dhalashada waddankaasi. Wararkan ka helayna gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa ku waramaya in beeraleyda ku nool deegaanadaasi ay aad uga cabanayaan xilligani ayaa xaalufin ku haya dalagooda. Deegaanada sida gaarka ah ee cabashadan uga imaanayso waxaa ka mid ah deegaano dhaca gobolada Mudug, Galgaduud, Hiiraan iyo weliba Shabeellada Dhexe. Dad ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe oo aan la hadalnay waxay inoo sheegeen in deegaano ka tirsan gobolkaasi hadda si xoogan looga dareemaya ayax xaalufin ba'an ku haya dalagga beeraha deegaanadaasi. Mid ka mid ah beeraleyda deegaanadaas oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ayaxani oo koox u socda ay weerar ku hayaan beeraha ku yaala deegaanadaasi. Beeraleydan waxay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaana wasaaradda beeraha ay ka codsadeen inay ka saacido sidii ay ku heli lahaayeen qalabkii ka saacidi lahaa inay la dagaalamaan ayaxaasi xaalufinta ku haya dalagooda. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dhulgariir ku dhuftay magaalooyin dhaca wadamada Turkiga iyo Greega ayaa ku waramaya in khasaaraha ka dhashay uu sii kordhayo. Warar horle oo la helay maanta oo Sabtida 31 bisha Oktoobar ayaa ku waramaya in dhimashadu kor u dhaaftay ilaa 22 qofood. Dhulgariirkan xoogga leh ee ku dhuftay xeebta Aagan ee Turkiga iyo waqooyiga jasiiradda Greega ee Samos ayaa waxa uu burburiyay guryo badan iyo dhismooyin waaweyn oo halkaasi ku yeelay. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu sheegay 7.0 ayaa haleelay gobolka Izmir ee Turkiga sida ay sheegtay dowladda waddankaasi. Turkiga ayaa cabirka ka dhigtay mid hoose oo ah 6.6 iyadoo sheegtay in 20 qof ay ku dhinteen, dad ku dhow 786 qofna ay ku dhaawacmeen gobolka Izmir, halka Samos oo waddanka Greega dhacdana la soo sheegayo inay ku dhinteen 2 dhalinyaro. Mas'uuliyiinta Izmir ayaa waxa ay sameynayaan hadda aag teendha oo ay ku xaroonayaan isla markaana hooy u sii noqonayso ku dhawaad qiyaastii 2,000 oo qoysas ah, kuwaas oo laga cabsi qabo in dhismayaal kale oo badan oo halkaasi ku yaala ay ku soo dumaan haddii ay sii deganaadaan. Madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli ayaa mar kale ku guuleystay doorasho ka dhacday waddankaasi. Xisbiga mucaaradka ee waddanka Tanzania ayaa ka soo horjeestay doorashada iyagoona sheegay inay tahay mid lagu shubtay. Guddiga qaran ee doorashooyinka ayaa dhankooda wax kama jiraan ku tilmaamay in doorashada lagu shubtay. Inta doorashadan ay dhicin waxaa waddanka Tanzania meelo badan oo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xisbiga mucaaradka iyagoo sheegay mas'uuliyiin ka tirsan in madaxweynaha waddankaasi uu doonayo in mar kale uu soo laabto, sidaas darteedna guddiga doorashooyinka ay kala shaqeynayaan sidii mar kale dib ugu soo laaban lahaa isla markaana doorashada loo gacan bidixayn lahaa. Sidoo kale guddigan doorashooyinka ayaa sheegay in madaxweynaha waddankaasi uu ka helay 84% doorashadii ka dhacday, halka hogaamiyaha mucaaradkana uu helay 13%. Codadka lagu kala guuleystay dadweynuhu ay bixiyeen ayaa u muuqanaysa in aad ay ugu kala sareeyaan labadan musharaxiin, iyadoona madaxweynaha waddanka Tanzania Magufuli uu ku soo baxay doorashada dhibco aad uga sareeya musharaxa kale ee mucaaradka ee la tartamayay. Faransiiska ayaa xoojinaya sugidda ammaanka magaalooyinka waaweyn ee gudaha waddankiisa kadib markii rabshado diimeedyo waddankaasi ay ka dilaaceen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegay in khatarta amni ee waddankaasi ay meel kasta saameysay. Golaha difaaca Faransiiska ayaa xoojiyay howlgelinta askar badan si ay u ilaaliyaan meelaha caamka ah oo guud ahaan ka kooban 11,000 oo isugu yimaadaan bulshada qeybaheeda kala duwan. Eedeysanaha 11 jirka ah ee u dhashay Tunisia kaasi oo booliisku ay toogteen ayaa weli ku jira cisbitaalka. Qoyskiisa ayaa sheegay in wiilkooda uu magaalada Nice yimid maalin ka hor weerarka, taasoo sare u qaadi karta tuhunka inuu isagu qorsheeyay weerarka iyo in laga yaabo in dad kale ay gacan ka geysteen. Saraakiisha Tunisia waxay caddeeyeen in ninkan 4 sano ka hor lagu xiray dalkiisa hooyo isagoo loo haysta dambiye la xiriira dagaal mindi loo adeegsaday. Waa hagaag daawadayaal, waxaad la socotaan qaybihii dambe ee wararka warbaahinta Samakulan Media.
markana waxaynu eegeynaa gabagabada dhinaca ciyaaraha. waxaa dhici doona ciyaaro kala duwan maanta oo sabti ah iyo beri oo xada, laakiin maanta oo sabti ah haddaan eegno waan soo qabanay ciyaaro badan ayaa dhici doona, laakiin waxaan kasoo qabanaynaa ciyaaraha oo loo arka inay ugu muhiimsan yihiin ama ugu adag. Manchester City ayaa la ciyaari doonto Sheffield United, Burnley waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kulanka kale ee ugu adag ee la saadaalinayo waa Liverpool oo ay fooda isdari doonaan West Ham United. guud ahaanna waxaan intaas kusoo gabagabeyneynaa wararkii caalamka ee warbaahinta Samakulan ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. waxaa wararka idiin soo jeedinaya anigoo AbdiNasir Maxamed ah. daawadayaal, waxaan idiin ballan qaadaynaa in saacadaha soo socda aad daawan doontaan warar kale oo la xiriira dhacdooyinka maanta iyo waxyaabaha kusoo kordha siyaasadda guud ahaan Soomaaliya iyo tan dibadda. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wararkeeni maanta. intaan dib u kulmi doono saacado kadib wararka kale ee soo socda, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.